Assalamu alaikum. I am Ibrahim Adam, and this is IB Adam Podcast. You are from Somalia, you are a student, maybe you are working, or perhaps you do nothing. But there's one thing that I know, and that is you have a need, and that need is to communicate others using English. I know that you are suffering, and I know that you are struggling, and I know that you're working so hard for just to improve your English. Don't worry, I got you. At the end of this video, I believe you will decide your destination. And after 6 months of this video, you will thank me and you will speak English fluently. Assalamu alaikum markale. Waxaan ahay Ibrahim Adam. And waan ogahay waad fahantay waxa aan ku soo iri. Waayo waxaan isticmaaliyay simple words. Waa wax iska fudud. Laga yaabay qaarkiin maaragtay in aadan fahmin, laakiin waa assignment, okay? Laakiin waa assignment. Qaybta commentiga ku soo daawac Soomaaliga inta aan hadeertaan sheegay. And don't worry, yani ha ka cabsanin inaad maaragtay wax khaldan soo qortid. Kaliya waxaan rabnaa inaan ogaano bal in aad fahantay intaan ku soo iri. Waa simple words. Everybody can understand. Yani qof kasta uu fahmi karaa. Waa wax iska fudud, ma fahantay? And mawduucan haddaan u guda galno episode-ka hore ayaan waxaan soo sheegnay in aan ka hadli doono this episode English. يعني maadaama dadkeena ama bulshadeena aad maaragtay ugu dhiban yihiin maaragtay dhanka luqadda Englishka yani way jiraan dad maaragtay aad u bartay oo ku hadli kara ama luqadda isticmaala oo aan dib ku qabin, laakiin mostly dadkeena maaragtay luqadda 0% ay ka taagan yihiin. sidaas la ajligeeda marka waxaan go'aansaday podcastigan ama mawduucan waxaan ugu talagalnay bal in aan uga hadalno luqadda Englishka iyo sidii maaragtay qofka ugu fududaan lahayd. haddii markaan u guda galno mawduucan oo aan uga hadlayno Englishka, waxaan aaminsanahay ka bacdi markii aad dhageysato yani mawduucan oo aad dhamaysato in aad go'aan gaari doonto. sidoo kale 6 bilood kadibna in aad English ku hadli doonto waliba si fluent ah oo si fudud uga hadli doonto. waxaa jiro maaragtay kanaalo maaragtay ka hadla iyo wali Soomaali ku dhahayso Englishka sideen ku bartay, Englishka wadadeen u maray, Englishka sideen u baran karaa, sidee u fudud. laakiin waa ina hal mid ogaataa, xog saxan ayay soo gudbinayaan, balse adiga iyo ayaga waad kala duwan tihiin. oo ayagana waa ayaga, adiguna waa adiga. wada gaar ah oo aad fahmaysid ayaa jirta, oo waxa aad rabto ku baran karto, waxaad rabtana ku heli karto. marka wadadaas waa inaad soo heshaa. luqadda horta waxay leedahay 4 level. waxaa loo kala qaadaa basic, beginnery, intermediate iyo advanced. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa A1, A2, B1, B2, C1, C2. waxaan ku sharaxi doonaa qodobada aan soo wadno mid kamid ah midaasi. sidoo kale waxay leedahay 4 skill ama xirfadood oo kala ah writing, reading, listening and speaking. yani Soomaalideena marka badankeena 2 kamid ah waa naqaana 4tan, oo sababtoo ahna yani iskuulka ama college-ka iyo jaamacadda ayaaba gabi ahaanba English ku baxa. oo maanta yani waxna waan qori karnaa, waxna waan akhrin karnaa, oo qormo meel ku qoran oo kale waan akhrin karnaa, waxna waan qori karnaa. laakiin caqabada labada ay ka taagan tahay ayaa ah labadan kale ee ah listening and speaking, siiba speaking-ka. waxaa jiray class aan qabtay online aan ku bixin jiray. waxaan sameynayay waxaan qabtay 20 arday ama 20 spot. inta aanan ardadaas qabanina waxay ka imaatay fikradaas maaragtay waxaa jiray yar maaragtay aan asxaab ku ahayn qaybta aalada TikTok-ga. waxaa la dhihi jiray Master Xusaan, live uu soo gali jiray, live-kiisaan ka qayb gali jiray. live-kan wuxuu ahaa yani waxaa lagu practice gareyn jiray luqadda Englishka. marka waxaan arkay Soomaali fara badan oo halkaasi inay kasoo qayb galaan isku dayaya, laakiin aynan u suuragelin, yani inay u suura gashay iska yar adag tahay. yani dhowr qof way soo kori jireen, laakiin yani Soomaali badan oo waxa jirta isku dayaysay inay kasoo qayb gasho laakiin aynan u suura galeynin. kadib ayaan waxaan go'aansaday in aan aniga live soo galo oo si ay fursad u helaan Soomaali badan. marka live-kaas ayaan sameyn jiray, Soomaali fara badan ayaa imaan jirtay, sidoo kale ajaanibtan way imaan jirtay, waa la isfahmi jiray. practice-kaas ayaan sameyn jirnay. haddana mar kale ayaan waxaan arkay in Soomaali badan haddana ay jiraan oo waxay fahmaya oo yani ku fahmaya waxaad sheegaysid ama hadalkii fahmaya, akhrin kara, qori kara, laakiin ay dhibayso haddana speaking inay hadlaan. number 1 waxay ku leeyihiin waan ka xishoonaynaa, number 2 yani wuuna dhibayaa. markaas ayaan waxaan go'aansaday inaan qabto class aan ugu magac daray English speaking class. English speaking class ayaan ugu magac daray. 20 spot ayaan qabtay marka 20 arday.
kadib markii ardaydii aan qabtay haddana waxaan ogaaday inaysan diyaar u ahayn ayna soo gaarsiisnayn qaybta speakingka. caqabad koowaad waxay ahayd inaysan soo gaarsiisnayn. caqabada labaadna waxay ahayd inaysan go-aan saxa aysan lahayn, baahi dhabaana ayna qabin ayaan ogaaday. sababtan ku ogaadayna waxay tahay yani wadadii iyo wixii systemkii aan ugu talagalay ma isticmaalayaan. oo waxaan dhahay waa in shaygan aad routiinkiina ku dartaan. every morning waa inaad samaysaa, every day waa inaad samaysaa. dee qofka hadduu mid labadaasna samaynaynin, baahina ma hayso, jacaylna ma hayo. ma aragti labadaas haddii meesha ka maqan yihiinna yani si aad wax ku heshaa ama aad ku barataa ama wax ku fahantaa way adkaan doontaa. wadadii lagu diray haddaadan marinna yani wax weligaaga waxban baranaysid, waxna ma kuusoo kordhayaan. waana u sheegi jiray, waxaan dhihi jiray haddii wadadan in aad martaan inaad diyaar u ahayn ama routiinkiina inaad ku dartaan aadan diyaar u ahayn, waxba ha isdhibin, kalaaskan iska dhaaf sidiisaba ma u baahnid. kalaaska 2 bilood ayuu soconayay. adiga ugu dambeyn waan soo gabagabeynay ayadoonan dadkiina waxba fahmin, waxna u soo kordhin. haddii aan halkaasi oga baxo midaasi, waxaan u galaynaa qodobadeena. qodobka koowaad waxaa jira wax la yiraahdo baahi iyo rabitaan. way kala duwan tahay marka. rabitaanka qof kasta wax ayuu rabaa. yani aniga hadda waxaan rabaa riyadayda inaan gaaro. riyadayda waxay tahay inaan tusaale ahaan inaan billionaire noqdo oo kale, ama trillion. hadhow trillion baa la gaari doonaa dabcan. so inaad billionairada adduunka ugu caansan ka mid noqdo, yani waa wax aan rabo. badankeena qof kasta wax ayuu rabaa inuu gaaro, laakiin waa rabitaan un, baahi ma ahan. waxay rabitaan ku tahay yani kama shaqeyno, waan iska seexanaa. so anagoo iska jiifno, anagoonan dadaal samaynaynin, yani meeshaas aan rabno inaan gaarno yani wax fudud ma ahan. sidaas la ajligeeda rabitaanka iyo baahidu way kala duwan tahay. baahidu maxay noqonaysaa marka? baahidu waxay noqonaysaa wax aad need ah oo aad u baahan tahay, oo si deeply aad ugu baahan tahay ayay noqonaysaa. oo yani wax kasto ayaad u horeysaa si aad waxaasi u heshid. laakiin rabitaanka waad rabtaa, laakiin waxaad ku qanacsan tahay xaaladda markaas aad ku jirtid. sidaas la ajligeeda rabitaankaas waad rabtaa un, weligaa noloshaada waad rabtaa, laakiin baahi ma gaarsiisna. laakiin shaygu markuu baahi gaaro waxaa imaanayso qodobka labaad oo ah jacayl. inaad wixii jeclaatid. wixii markaad jeclaatidna waxaad rabtaa in aad hesho, soo maahan? so waa inaan labadaas laga helaa. haddii labadaasi lagaa waayo qodob, micnaheeda waxay tahay English ma rabtid. English waa inaad baahi u qabtaa, marka labaadna inaad jecel u qaadaa. marka saddexaad maxaa imaanayo? marka saddexaad waxaa imaanaya go-aan. inaad go-aan ku gaartid oo dhaqaaqdid waxan aad maaragtay lugta koowaad ama tallaabada koowaad in aad qaadid ayaa imaanayso. marka labadaas waa inaad naftaada ka baartaa, inaad baahi qabtid iyo inaad jeceshahay. rabitaanka iyo baahidaas ku qaldin. waad rabtaa in aad ku hadashid, yeah, everybody wants that, laakiin everybody don't need. okay, meesha waxaa jira wax la yirahda need. kala saar haddaba naftaada dib ugu laabo, qiimee baahi ma jirtaa. haddii baahi ay jirto, jacayl baa imaanaya. jacayl markuu imaado, go-aan ayaad gaaraysaa. marka go-aan markaad gaartid, waxaa imaan doona qodobka afraad oo ah decide your level. hadda marka sheekada hadday bilaabanaysaa. horta waa in saddexdaas lagaa soo helaa. saddexdaas haddii lagaa soo waayo, there is nothing you can do number 4. okay, number 4 ma samayn kartid haddii saddexdaas lagaa soo waayo. okay, midka afraad haddaan u imaano, waxa weeyaan decide your level. levelkaaga go-aanso. yani afartii level aan soo sheegnay, beginnery, basic, beginnery, advanced iyo intermediate kee tahay. midkaa tahay waa inaad go-aansataa. sideed ku ogaanaysaa? waxaa jiro websiteyo lagu tijaabiyo, linkiga qaybta descriptionka ayaan soo gelin doonaa. websiteyadaasaad ku ogaan kartaa levelkaa tahay, ama hadda ayaana kuu sheegayaayo ayadoo faahfaahsan afka ayaama kaaga sheegi doonaa. haddii aad isku aragto marka in aad beginnery tahay, waxaad bilaabaysaa isla markaasba erey aruurin. waa inaad ereyo aruurisaa. ereyo fara badan waa inaad aruurisaa. waayo haddii aadan haynin ereyo kugu filan, macquul maahan in aad hadasho. waayo tusaale ayaan ku siinayaa. haddii maanta ereyada Soomaaliga ah laga delete gareeyo ama laga tirtiro maskaxdaada, macquul ma tahay inaad hadasho? waa maya, macquul maahan in aad hadasho. waa sidaas oo kale. no words, no speaking. haddaba muddo 3 bilood ah ama ka badan waa in aad samaysaa ereyo aruurin si joogto ah. marka kuma ekaanaysid erey aruurin keliya, balse waa inaad sidoo kale barataa ku dhawaaqida ereyadaas, si hadhowti markaad uga maarantid ama u noqdo hadalkaaga mid la fahmi kara,
si degdeg ahna aad ugu dhawaaqaysid ama iskugu xirxirisid ereyada iyo jumladaha sida rabtadna u sheegaysid. waxaa dhacaysa marka hadhowti inay kuu fududaato accentigaaga inuu fududaado, ereygana sida saxdeed aad ugu dhawaaqdid ayaa imaanayso. haddii marka aad isku aragto in aad tahay intermediate, waa in aad barata grammarka. laakiin hal mid, grammarka waqti badan yuusan kaa cunin. kaliya waxaad baranaysaa basic grammar, waadna ka soconaysaa. kaliya 2 weeks ayaad samaynaysaa midda, ama hal week ayaa kaa badan inaad basic grammar aad barato. waayo muhiim ma ahan in aad barato dhammaan naxwaha luqadda. tusaale Soomaaliga, wax walba maanta luqadeena ayaan ku tusaaleynaynaa. ma nagu jiraa cid ka shaqayn karta imtixaan ama test yar oo naxwaha Soomaaliga ah? haddii aad dadaasho waxaad keenaysaa 60% ama 50%. ma naqaano naxwaha Soomaaliga. imtixaanka shahaadiga hadda for example u fiirso, ma arkaysid hal arday oo 100% ama 90% iskoor garanayo naxwaha. ama lianna imtixaankaas waxaa lagu qaadaa luqadda subjectiga Soomaaliga ama luqadda qaybtaasi Soomaaliga waxaa lagu qaadaa maaragtay grammarka ama naxwaha. so ma jiro arday iskoor garan karo 100 ilaa 90. waxay ku dhacday grammarka muhiim ma ahan, waanu hadalnaa sidaa rabnaana u hadalnaa. so basic grammarka oo kaa caawinayo kaliya inaad ereyadii aad soo aruurisay aad isku xirtid umbaad baranaysaa. hadda dadka native-ka ah Soomaaliga sida hadda anaga ka nahay ayay ka yihiin ayagana luqadda Englishka grammarka ma wada yaqaanaan. basic grammarka iyo isku xirkaas mahane, just like ma wada yaqaanaan. so waxaan ma aragtay iskuulada Soomaalida naxwo unbaa lagu baraya. yani qofka wuxuu tegayaa English college, naxwo unbaa la barayaa. yani grammar is not important. just like leave this thing, okay? you need to speak, you don't need grammarka miyaad cunaysaa? no, grammarka ammaansi. just like basic grammar bro, 1 week, after that week leave it. yani luqadda way baaxad weyn tahay, luqadda way weyn tahay, way ballaaran tahay. so leave the grammar, just study the basic grammar and leave the grammar, okay? so haddii aad marka isku aragto in aad tahay advanced, waxaad u baahan tahay marka practice inaad samaysid. marka waa inaad practice garaysaa, waa inaad cid kasta kula hadashaa. Englishka qofka wuxuu baahida u qabo kama heshoodo. isticmaal luqadda, waqti geli. haddii aad heli karto qof native ah ama u dhashay, waa arrin fiican. yeelo asxaab native ah. qofka wuxuu baahida u qabo meel kastuu u galaa. marka yeelo asxaab native ah ama ajaanib ah si uu u fududaado communicationkaaga. haddii aadan heli karinna kula hadal dadka xaafadda kula jooga ama asxaabtaada. haba ku dhahaan yani waxaaga waa show off ama adiga yani waa isgadgadaysaa, waana waxa dib kuu dhigaya. waa in aadan waxaasi waxba kasoo qaadin. adi ujeedkaaga waa in aad English ku hadashaa, waa in aad garataa ujeedkaaga iyo goolkaaga. waxaa jira application AI ah, xayisiin uma sameynayo laakiin waa wax muhiim ku ah. so practice haddii aad rabtid inaad sameysid, waxaa jira application la yiraahdo Practica. ku qor App Store-ka ama Google Play-ga, waxaa la yiraahdaa Practica la soo deg. wuxuu leeyahay AI, yani waa qof ku hortaagan laakiin qof caadi maahan, waa wax AI ah laakiin kula practice gareynaya. dhammaan wixii aad sheegtay uu kaaga jawaabaya, si toos ah oo la sheekaysanaysa. so ka faa'iideysta midkaasna. midda ugu muhiimsan marka oo ah midda shanaad, levelka doontid ahow, waa in aad samaysaa dhageysi, listening. maxaad dhageysanaysaa marka? ma ahan taasi inaad ku wareertid. marka aniga kuu sheegay waxaad dhageysan lahayd. waxaan ogahay adigana aad og tahay in uu jiro mowduuc ama wax aad jeceshahay in aad daawato ama inaad dhageysato, ama Soomaali ku dhageyso ama luqad kale. marka adiga isla mowduucaas aad jeceshahay ayaad ku raadinaysaa English ahaan, adigoo ka raadinaya qaybta YouTube-ka ama podcastiga taleefankaaga. tusaale, haddii aad wiil tahay waxaad dhageysan kartaa maaragtay kanaalada men's fashionka oo kale iyo wixii la mid ah. haddii aad gabar tahayna waxaad daawan kartaa maaragtay sida make up tutorial ama cooking oo kale iyo wixii la halmaala oo la mid ah. haddii aan mention gareeyo ama aan sheego kanaalada qaar marka sida financiga oo kale, waxaad daawan kartaa nin la yiraahdo Iman Gutch. yani Iman Gutch wuxuu isticmaala luqad cid kasta ay fahmi karto oo iska simple ah. dhanka men's fashionka oo kale waxaad daawan kartaa maaragtay ninka la yiraahdo Alex Costa ama Jose Zuniga oo kanaalkiisa uu yahay men's fashion, teaching men's fashion, ama Aaron Mario oo asagana
maaragtay kanaalkiisa oo ku magacaabo Alpha M waa fahmi kartaan dabcan anigu saddexdaas nin ayaan dhigi karaa maaragtay in luqadeeda wax ay ka bedeleen oo ayaga ayaan aad u dhageysan jiray muuqaaladooda aad ayaa u daawan jiray sidoo kale waxaa jira nin motivational speaker ah oo aan aaminsanahay in cid kasta ay fahmi karto luqada uu ku hadlayo waxaana la yiraahdaa Mohamed Qahtani I think la yiraahdo Mohamed Qahtani haddaba haddii aad gabar tahayne just waxaa qortaa make up tutorial oo kale ama wixii la halmaalo maaragtay oo aad xiiseynaysid ama documentaries oo kale waxaad daawan kartaa Netflix-ka waxaan dhahnaa is the best teacher like Netflix-ka asiga laftirkiisa aad ayuu u wanaagsan yahay maaragtay movies-ka waa daawan kartaa laakiin maadaama waqti dheer uu ka qaadanayo mowduucyada hadda kuu sheegay ayaa aad uga fiican oo muhiimsan haddaba dhageysiga haddii aad joogtayso waxaan aaminsanahay in aad 6 bilood ee soo socoto aad English ku hadli doonto بإذن الله كريم إن شاء الله تعالى so من فضل دقيسي قبضي وحان جعلها عد كستا أو صوماليا إن لغتان أي براتو لأن ما ركت لغتان وانترناشنال so يعني إن هدي أدربتي مانت إن أدوح أغرسيد وأنا إنجليش كو قرطها أما عربي so لبدي هدادا نقرنين it's a problem أنا قد عربي ما قرنين ما خانا رندي يعني basic عربي basic سوانا قانا يعني طبعا قرآن قف صوبرتي إنه سنقرنين المؤملينايو لكن كما هذي كرو I love to speak Arabic I just like love to learn and study Arabic I love to speak I love to use it لكن I don't know لكن إن شاء الله تعالى أنا قاين أنكو قاردونا إنا مداسي برتو مركا هل مد أيان ربا إنا نقدرو أن هدايا كسو تغي أو نفت هذا اللحظة أوكي نفت هذا اللغة كل هذا سيداد أولاد ليسا واد فكرتا يعني واد فكرتا قف فكرا يا أياتهاي waxaad ka fikirtaa maaragtay waxaad qaban lahayd meeshaad aadi lahayd waxaad soo sameyn lahayd so waxaasi markaad ka fikiraysid Soomaaliya ugu fikirin okay naftaada English ku fikirto it's like waxa dhahdaa today I will go to the market when I go to the market I'm gonna buy those things shampoo or something like that I'm gonna visit my friend and we were like classmates like something waxyaalahaas like saas ugu fikiraysaa yani waxbaad mal awalanaysaa yani naftaada ayaa la hadlaysaa la sheekaysanaysaa midda aan ku soo afmeereyno ama aan ku soo gabagabeynayna marka mawduucani ahna midda ugu muhiimsan haddii aadan sameynina ama aysan suuragalba ahayn in aad English barato waxay noqonaysaa consistency ama joogtayn consistency is the key of everything okay caqabadana haysata haddaan Soomaalinahay waa midaas yani malhin joogtayn waxaa laga yaabaa inaan hal isbuuc sameyno bis halkaasaan ku ilaaweyna qaar baaba maaragtay hal isbuuc iska daayay gaarsiin karin maaragtay yani waxaa la yiraahdaaba master ama miss 2 days ayaaba la yiraahdaaba yani 2 maalin baa la sameynaya dharac waa laga tagaya wixii halkaas lagu soo afmeeraya so waaba la hilmaamayaaba marka yani waxaa keenaya qorshe la'aanta haddaba tani waa midda beeninaysa ama rumaynaysa wixii aad naftaada u sheegtay markaan ka soo hadlaynay maaragtay baahi dhab ah ma u qabtaa baahi dhab ah ma u qabtaa inaad Englishka ku hadasho baahi dhab ah ma u qabtaa inaad English barato ya haddaba jawaabtaadu haddii ha tahay joogtay qodobadan soo sheegnay ya qodobadan soo sheegnay waa inaad joogtaysaa haddii jawaabtaadu ha tahay okay consistency is the key marka joogtaynta muhiimad gaar ayay leedahay okay so consistency haddaadan diyaar u ahayn inaad samaysid iska hilmaan okay fiiri waxaan haddii aad jeceshahay aad u baahan tahay go'aanna aan gaartay inta soo sheegnayna inaad samaysid diyaar aad u tahay waxa qasab kugu noqonaysa maalinkii kuma dhahay hal saac si like uma baahnid hal saac waxaad u baahan tahay kaliya 20 daqiiqo 15 daqiiqo okay saacadaada ku buuxi 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo 15 kaas daqiiqo do not focus anything else wax kale taa focus gareenin kaliya focus garee English ama inaad erayo cusub baranayso ama inaad muuqaal daawanayso muuqaalka aad daawanaysidna waxa laba faa'iido leeyahay muuqaalka markaad daawanaysid laba faa'iido leeyahay muxuu labada faa'iido number 1 waxaad fahmaysaa accentiga qofkan number 2 waxaad fahmaysaa maaragtay erayo cusub baa helaysaa erayada aad taqaanid markaad dhageysatid yani waad ka tagaysaa maaha laakiin erayada cusub waa inaad fahantaa erayadaas cusub waa inaad diiwaan gashataa okay waa inaad ku dartaa new words kaad baranaysay teeda kale mid kaloo waxaa jirta muhiima oo aan ka tegay midaas maxay tahay waxaa jira wax la yiraahdo maaragtay accent soomaha waxaa jira accent yani lahjad ayaa jirto waxaa jira American accent iyo British accent labadaas taqaaniin Soomaaliya datiin
labadaas kaliya taqaanin. So that's the main problem. waxa problemka weyn keenayo waa midaasi. sidee u keenaysaa? Accent is not important, my brother. My sister, accent is not important, okay? muhiimadda waxa weeyaan qofkan aad la hadlaysid ma ku fahmaya, adiguna ma fahmaysa, okay? waxa qortay ma la fahmaya, adiguna wixii la qoray ma fahmaysa oo ma akhrin kartaa. muhiimaddu waa intaas. qofka kula aad la hadlaysid ma ku fahmaya, adiguna ma fahmaysa. خلاص, okay? Accent is not important. Do not focus this bullshit accent, okay? Accent muhiim ma ahan. Accentiga waqti ha ku dhuminin, okay? Fiiri. hal mid ay jirto. waxaa jira wax la yidhaahdo Indian accent. Indida luqad ayay leeyihiin, luqad ayay ku hadlaan, luqadoodii ayay ku dabaqeen Englishkii, okay? qofka Hindiga marka hore intaad ku cusub tahay, waxaan boqday India. qofka Indiga markuu wax kuu sheego, waxaad leedahay sorry or come again oo kale aad leedahay ku soo celi, lianna ma fahmaysid marka hore, laakiin markuu kugu soo celi ayaad fahmaysaa. marka hore ma fahmaysid, laakiin marka labaad ayaad fahmaysaa. wuxuu ku hadlayaa lahjadiisa, his own accent. He's using his own accent, okay? So use your own accent. There is Somali accent, okay? English waxaa jiro Somali accent. So if you're using Somali accent, it's not important to to waste your time thinking about accents. The other accents ka aad ku fikiraysa iska dhaaf. Focus and make the mistakes. qaladaadka ha ka cabsanin, okay? To make a mistake is very important. If you don't make the mistake, if you avoid making the mistakes today, you will make tomorrow the mistakes in an important session. يعني maanta haddii aad qaladaadka iska ilaalisid ood ka fogaatid aad ku samaynaysid luqadda, beri ayaad samayn doontaa qaladaadkii weliba adigoo ku jiro meeting muhiim ah. So do the mistakes today to avoid tomorrow. But do not avoid the mistakes today to do tomorrow the mistakes. So qaladaadka maanta ha ka fogaanin, ha lagu soxo. qof markuu ku yiraahdo jumlada si khaldan baad ugu dhawaaqday, ha dhihin waan ka aqaanay, maaragtay ha ii sheegin. Accept and tell him to tell you, okay? Ask him to tell you. waxaad dhahdaa qaabkay u saxan tahay. So yaana waxba war idinku daalinin, accentigiina isticmaala Soomaaliga ah. Don't worry about the other accents. So the important is the other person can understand you, and can you understand the other person. So that is the importance of communication, okay? So leave this accent problem. Do not focus this accent problem. waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka fahanteen episodekan. waxaan rajaynayaa in aad go'aan qaadan doontid insha Allah. waxaan aaminsanahay aan ku kalsoonahay naftaada, sidoo kale waxaan aaminsanahay inaad go'aan gaari doontid maanta si 6 bilood kadib aad ugu hadashid luqadda. waxaana iska kaa bedeli doonaan hadduu eebeedmo. beri ha u dhiganin, hadda bilow. 6 bilood kadibna muuqaalkan soo raadi, commenti kusoo qor, waxaad dhahdaa 6 bilood ka hor ayaan bilaabay laakiin maanta waan ku hadlayaa. xalaqadan halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. waa inuu next episode insha Allah tacaala ku raaxayso noloshaada. Assalaamu calaykum.